shaqo runtii la taaban karo oo juhdi badan la geliyaad moodaa inay ka dhex muuqato meesha guddiga noo qaabilsan annaga barnaamijkan iyo wasaaraddu wada shaqaynta ay sameeyeen waxaad moodaa in ay juhdi badan geliyeen buug qurux badan kusoo qoreen laakiin ani waxaan qabaa haddii aan u malaynaa inaan samayn karin waxaan ku wareejinaa qoraalkayga o dhan baan ayaga siinaa guddoomiye si aan u siiyo u fududay markii haddii kale kama gaarsiin karo beejka shanaad qodobka afaraad qodobka shanaad qodobka lixaad qodobka toddobaad qodobka sagaalaad qodobka sagaashan sideedaad intaas qodobka mulaaxad inaan ka bixiyo mulaaxadahaas aan bixinayo waxay u badan yihiin inta badan wax u baahan in dib loogu noqdo oo la saxo shirkadaha hadda example inaan ka bixiyo lixaad oo kaleeto shirkad dadweyne waxaa ku qoran saamileyga inay konton ay ahaadaan xubnaha shirkadaha in ka badan yihiin 50 wax diidaa ma jiro in shirkadda 10 saamiley noqoto wax diidaa ma jiro beerta suuqay kaga qoran tahay mada 10 ruux oo min 2 milyan 3 milyan leh shirkadu waa samayn karaa saamigoodana waa yeelan karaan marka wax sabab looga dhigay haddii noo sheegaan guddiga iyo wasaaradda aniga ku qancaa horaa kaga qancaa laakiin waxaan rabaa waxay qancinahay inaan helo taas waa ogolahay laba qodobka toddobaad iyo qodobka shanaad hore aan sheegahay waa sixid u baahan af soomaaliga barkee wuu isku soo laba noqonaa isku soo laba noqoshaas wuxuu keenaa waxaan sharci waaye sharcigii uu bedelaa soo dhan af soomaaliga uu bedelaa meel kaloo la aadaya maanta qodobka 11aad shirkadda waxaa asaasi kara qof ama wuxuu leeyahay xuquuqda saamile oo ku xadidan ayaga waxay qoran ka xadidan waa ku xadidan waay marka inuu mutlaq ku cadfan yahay haddii kale ka haddaad tidhaahdid it's from ka imaanaysa waay ka iyo ku waay waana muhiim sharciga ka iyo ku wax dilo waay laakiin soo dhan siina gudoomiye hadda ka qabaa soo dhan siina guddigan siina waa ka shaqeeya xal ka shaqeynaya shalay tan kale xataa the same thing bogga 8aad qodobka 11aad aasaasida shirkadaha taada sheegayo waaye shirkad waxaa aasaasi karo qof ama ka badan sida shuruucda islaamka ay qabtana waxay soo gareenaya meesha waxaa tiraahdaa 18 sano 18 sano waxaa moodaa inaan ka soo qaadanay derivation ah dadka aan islaamka ahayn annagu islaamku wuxuu qabaa qofkii inuu ku baaluqayo 15 sano 15 sano uu ganacsi ku samayn karo saamina ku yeelan karo bangi account ku furan karo marka mar hadduu islaamka ogol yahay dastuurkan uu dhahayo wixii diidaya shariicada islaamka ka hor imaanayo valid ma waa null and void markan shariicada islaamka ka hor imaanayo 15 sano qofka hadduu jiro waa yeelan karaa shirkad waa yeelan karaa wuuna samaysan karaa idinkana 18 sano ka dhigteen marka wuxuu burinayaa nidaamka dastuuriga oranayay qofka muslimka 15 sano ku baaluqaya markaasina kaas ka aadna waaye wax kaloo weyn oo mataqaanaa oo muhiima hadda aan u arkay ma jirin laakiin kaas muhiim weyn sidoo kale waxaa shirkad aasaasi kara shirkadda ama shirkado shakhsiyada caadi ah isku darsan karaan hanti iyo faa'iido ganacsi ah iyo dan kaleba shuruucda dalka oo ka hor imaanayso sidoo kale sax way ka hor imaanay marka wixii ka hor imaanayo shuruuciyii hore ee ganacsiga yaalay waxaa moodaa derivation ilmayna sameeyay markee wasaaradii idinka horreeyay 60kii ilaa iyo 69kii sharci ganacsi oo private ah jiray oo sheegay saamigiisa milaanta noogumayna soo cadeen halka ma dhahaysaan sharcigaas saasuu oranayay inkastoo arkay bogga ugu dambaysa uu leeyahay markii kan la saxeexo wixii sharciye hore u jiro dhan waa null and void waxba kama jiri doonaan marka yaa la dhihin waxba kama jiri doonaan sababtoo ah kan ma koobi karo buuggaas kale waa weyn aad u weyn waa aragteen malayna laba meelaha iigu dadaranoo kale oo rabo inaan runtii haddii qodobka 24 fiiriya qodobka 24 beejka 85 waa ayta gudoomiye soo okay kaas labaadkiisa haddii saamiiluhu yahay shakhsi sharci si fiican u dhegeysiya shakhsi sharci oo shirkadu kacdo ama baaba'do
wakiil sharci haddana shaqsigii dan ku lahaa saamilahaas ama dhaxalkiisaas lahaa ayaa la wareegayo dhammaan awoodihii u baahnaan jiray saamiluhu af soomaaliyaas completely la saxawa completely la saxawa wax laga fahmaya ma jiro أنا ما أقول لك أصلا قرية وحنا عكسنا يجيب فهم بريئين الجهد بدنا يجيلين لكن حوار حوبة هاي إلا صعوبة هاي قدر هبي حاك مستحيلات هو سينا ترى أنا وديارس أي أوكي قدر كشاني تمنات عطب كشاني تمنات قدومية قدر كيسة سياشة نسديدات بقى لحظة نسديد بقى لحظة نسديد بيج 68 عبد الولي سوى عندك صبح هنا هذا سوى لا ما قدامي اوكي بقول لعنا سديد قدرك سداد سديد واجب النمذا iyo ogolaashaha shirkadaha shisheeye hada qodobkaas fiirisan dad goor kale ka hadli doona jiro waa dawli aad iyaga si duleera laakiin wuxuu dib kugu celinaa qodobka 13aad fiiriyo qodobka 13aad oo sharciga ay dib kugu celinaa qodobka 13aadna haba yaraatay wuxuu sheegay mar oo shisheeye arrimaha shisheeye ka hadlaya mare wuxuu leeyahay shirkadii waxay aasaasantaa marka qoraalkeeda aasaaska ee diiwaangelinta iyo aqbalka diiwaan hayuuna diiwaangeliyo halkaas wuxuu dhageysta diiwaangeliyona uu diiwaangeliyo aasaasiyaashuna codsadaan in loo diiwaangeliyo wax badan ka horeeya maxaa horta diiwaangelin waxaa meesha ka baqan horta in shirkadan waxaa la dhahaa EB Development Company EB Development Company markii la yiraahdo waa inuu diiwaangeliyaha baaraa inuu EB Development Company uu jiro meesha kuma cadda waa inay caddahay in diiwaangeliyaha inta marka hore uu ku qoran tahay in la baarayo oo magacan hore u jiri jiray inuu hore u jirin hadduu jiray qofkaas waa loo sheegay xalli magacaas hore u jiray hadda way sameeyaan ganacsiga runtii hadda way sameeyaan magacaas waa jira raallo kama qaadan iska soco laakiin sharci markuu noqonayo inay caddaha fiican meesha kooda caddahay qodobkan oo 98 dib uu kugu socdaa 13 intaas ku qoran waa one paragraph na reference ma sameyn karo shisheeyina waxay samaysan karaan shirkad oo barnaamijkii ganacsi oo dhan ku maalgashan yahay malaha mataqaana partner hadduu partner Soomaali partner la'aan shirkad waa la samaysan karaa shisheeye laakiin qofka kayba ka soo qaad ani kabani ma samaysan kara kayn waa inaan accounting ku shubaa intaas ran laga qaadaa waa inaan damiin leeyahay hadii bari wax aan dhaco aan qaado yaa iga qabanayo maxaa laga qaban karaa waa inaan deganaansho leeyahay all these things inay inta ku caddahay waay inaan hadda shisheeye ahay waxyaabaha waajibaadka igu inaan shirkad samaysto oon dal ku samaysto oon hanti ku gelinayo oon hanti ku qaadanayo saami ku samaysanayo waa inay equalkeeda waa inay iga taasho wax badan aan jiro marka waxaan siinaa buugga haddaad guddoomiye ogolaatid saaxiibadaan siinaya runtiina shaqo fiican bay qabteen ilaa khayr ha siiyo haddana aan ugu kaalmay in loo saxo intii reer u dhigo dhamaasantii